hore ee Soomaalida iyo xididka. dhegaystayaal, haddii aydun weli xusuusataan barnaamijkii saddexaad ee silsiladan xididka iyo dhaqanka aan kaga hadlaynay ayaan ku soo qaaday oraah murtiyeed uu abwaan Soomaaliyeed reebay kuna saabsanayd xidhiidhka xididku marka uu soo xumaanayo siduu u kala daran yahay. waa oraahdii mahmaahda noqotay ee ahayd nin iyo seedigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday, sodogii hadday gaadhana saxariir rag baan mooday, sodohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday. intaan haddaba ina hebel guursigeeda aanay tala kaga ibabeelin waxay ragga hore toyan jireen anshaxa qoyska ay ka soo jeedo. waxay si hoose ugu dhabbageli jireen magaca ama magac xumada uu qoysku bulshaweynta ku dhex leeyahay. ninka markaas guurdoonka ayaa wuxuu si gaara ugu fiirsan jiray camalka iyo gohaadda islaanta berri sodohda u noqon doonta. waxaa la qabay inay iyadu tahay jiritaanka qoyska gabadheeda qofta dheerayn karta amaba inuu dumo soo dedejin karaysa. waase waayadii ay dhashu waalidkeed dhab u maqli jirtayoo iyadoo dhowr da'ood dhashay ay gabadha hooyadeed inta gacanta soo qabsato reerkii ay wax u dhashay ka soo kaxaysan karaysay. sababaha dartood bay sodohda ugu roonaan jireen, uga xishoon jireen, eray xun iyo wax u dhow toonana uma ay quuri jirin. yaradka oo sidaynu ognahay gabadha aabbaheed la siin jiray ka sokow waxaa jiray xoolo aan sidaa u buurayno ninkii heli karaaba uu sodohdu isku gunayn jiray, iyada oo weliba mararka qaarkood qasab lagaga dhigi jiray. taana aan tusaale idinka siiye beri baa waxaa aad loogu tartamay guurka gabarh ina suldaan diiriya la odhan jiray. yarad fara badan ayay dadkii dhalay ku xidheen, markaas baa la isku faldhisay ilaa markii dambe arrintiiba ay xiniyataabad gaadhay. ma reer hebel bay u dhici doontaa mase guryaha reer hebel bay salka dhigi doontaa? talow ninka uu suldaanku kula xididi doonaa kuma ayuu noqon doonaa? su'aalahaas iyo kuwa lamid ah ayay bulshadu meelaha la isugu yimaado intii muddo ah isku weydiin jirtay. wax la wadaba goor dambe ayaa waxaa tartankii ku soo biiray barbaar qoys saboora ka dhashay, asii loo wada han weynaa, barbaar la wada jeclaayoo jifadiisa meelo sare ka joogay. markaas buu raggii xoolaha lahaa ku muusanaabay. wuxuu ku dhaartay haddii aan gabadhaa loo soo xerogelin inuu toloobi doono. xoolaha yaradka ah ee suldaanku sheegtay haddii aan la soo tubin inaan dib dambe loo arki doonin. kolkaas baa loo wada guntaday. rag aan doonayn in reer hebel uu gabadha kaga adkaado ayaa maalmo gudahood ku soo ururiyey geelii iyo fardihii yaradka ahaa, taasoo suldaankii gabadha dhalayna uu ku raalliyey. dhowr bilood kadib ayaa reerkii uu la xididay waxaa u sadcaaray inankii oo doonaya inuu gabadhii dhisto oo ama isla reerka uu idanlayaal ku noqdo amaba uu ka soo kaxaysto. ha yeeshee markuu gaarayba waxaa laga hor keenay shuruud hor leh oo marnaba aanu soo rogin. waxaa lagu yidhi gabadha lagu siiyey waxaase lagu dhisayaa oo keliya markaad sodohdaa u keenteed 60 neef oo ari ah iyo awr ay ku guurto. dabadeed isaga oo daranbaabi ah ayuu ku soo noqday isla xigtadii shalay yaradka ka bixin jirtay. geedkii ay ku shiri jireen intuu soo beegay ayuu ka mariyey tix gaabanoo reer xididkii wixii uu kala soo kulmay uu ugu sheegayo. waxaa laga hayaa lubbidaydu kuma beegsateen labida waaweyne igu laashay meeshii dadkuba layrad ka ahaaye 60 ariya iyo qaalin bay libini joogtaaye balliil geliya caawana wixii lagula laamayo. halkiibaa intaasna loogu ururiyey. sodohda oo la gunneeyaa ma ahayn wax guurka ka hor ku ekaaye waa wax inuu ku wado ninka wanaagsan ee gabadheeda qaba laga fili jiray. haddii lala darso iyo haddii laga fog yahayba waxay ka mid ahayd dhaqankii hore ee Soomaalida qaybihiisii wacnaa ee la isfari jiray. sodohda wacan waxaa iyadana laga malaysan jiray ninka ay gabadheedu u dhaxdo inay dhab uga xishooto, labadoodaba inay hooyo u wada ahaato, haddii madmadow soo dhex galo inay gartooda dhexdhexaad ka noqoto, in aanay maamulka qoyskooda si toosa faraha ula gelin,
had iyo jeerna siduu u sii jiri lahaa ay ku hawshooto. Sodohuhuse weligoodba isku mid ma ahayn. Sida dadka kaleba u kala dabeecad yahay ayay iyaguna u kala anshi duwan yihiin. Waxay oran jireen qof walba wixii uu la yaraa buu la weynaadaa. Waana abuur baa ka horeysana waatay ku mahmaahi jireen. Macnaheedu wuxuu yahay inkastoo sodohaha Soomaaliyeed ay u badnaayeen dar wanaagsan oo xishood iyo sariigba leh, haddana waxaa kolkol la arki jiray mid kulul oo inanka ay sodohda u tahay har iyo hoyaadba u diida ilaa marka dambe iyada iyo gabadheedaba uu u daldaayo. Marahayga taas oo kalena waa tii allaha u naxariistee Cumar Cigaal u jeeday markuu lahaa sodohdii xun gabadheeda waa lagaga siibtay. Si kastaba ha ahaatee rag tira yar oo waxaa jiray markay is-afgaran waayeen inda adeygooda ku dhiiraday inay sodohdood u gabyaan. Mid kuwaas ka mida oo beerkiisa aan beer ka xigin ayaa reer isna sabool ahaa jeer ka guursaday. Guurkuna siday u qaybin jireen 3 mid buu noqdaa. Bari saaran oo ah 2 reer oo ladan oo xididay. Bari dab saaran oo looga jeedo 2 reer oo midkood ladan yahay midna sabool yahay. Iyo dab saaran oo laga wado marka ay 2 reer bacayl yihiin. Ninkaas haddaba saboolka ahaa ee cidda saboolka ahna ka guursaday ayay sodohdii waagii dambe aad ugu kululaatay. Mar ay gabadha ku soo dirto iyo mar ay iyadu u bareertaba waagii baryeba waa erag. Gabalkii dhacaba waa canaan, hiif iyo haaraan. Lug iyo laan buu kala bixi waayey. Sababtana waa la gartayoo inanka gabadheeda guursaday ayay malaha waxtar ka filaysay, taasoo ay ku hungowday. Sodoh iyo cid kaleba in xididku wax istaartaa waa gar, waase markii wax la isdheer yahay ee dhinacna uu waxayo dhinaca kalena uu goomoon yahayoo ay waxaas baahi u hayso. Maalintii dambe ayuu inta meel fadhiistay isaga oo keligiisa garnaqsaday. Tixgabay ah oo 3 meelis ka kooban buu tiriyey. Marka hore wuxuu garaystay waajibkii ay sodohdiis ku lahayd inaanu gudanin. Marka labaadna wuxuu isugu cudur daaray inaanu taas eed ku lahayn marba hantidii uu iyada ku raali gelin lahaa haddii aanay gacan ugu jirin. Marka saddexaadna sodohdii ayuu ku eedeeyey inay ka baydhay dhaqankii wacnaa ee sodohnimada ku saabsanaa, isagana aanay ka xishoon inay ximisa mooyaane. Markaas buu yidhi, sodoh waxaad xurmaysaa markaad xoola leedahaye allaylehe xaqaagii ma gudin, laysma xaasido adigana xishoodkuguma arag laxintan mooyaane. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo.